السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بينما وناكسن خيارتنا داوان ساي ميل كستو joogtaan caalamka idil ahaantiinba ku soo dhawaada war waxaan caalamka idinka hayno youtube-keenan badiya bari channel wararkan caawa idin hayno waxa ugu dooroon Mareykanka Afrika iyo Asia iyo arrimaha Soomaalida wararka Soomaalida haddaan idinku horeeyo wararka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay sanad guuradiisii koowaad ee xilkiisa isaga oo sii adkeeyay siyaasaddiisa dibadda gaar ahaan arrinta Greenland halkaas oo ku riixayo in Mareykanku yeesho saami ama xakamayn taasoo keentay muran diblomaasi iyo walaac caalami ah sidoo kale suuqyada saamiyada ee Wall Street iyo caalamka ayaa hoos u dhacay maanta sababo la xidhiidha cabsi siyaasadeed oo ka dhalatay khilaafka Trump ee Greenland iyo hanjabaadaha cashuuraha ku eegi karo qaar ka mid ah dalalka xulafada la ah sidoo kale waxaynu gudagalaynaa wararkii Yurub hogaamiyaasha Yurub waxay si adag uga soo horjeesteen qorshaha Trump ee ku saabsan Greenland iyagoo ku tilmaamay tallaabo aan ku habboonayn siyaasadda caalamiga ah waxaa jira qorshayaal ay qaar ka mid ah wadamada EU ku baaqayaan in la joojiyo heshiisyo ganacsi ama in la adeegsado qalabyo kale oo loogu jawaabi karo cunaqabataynta Mareykanka haddii loo baahdo sidoo kale Davos shirweynaha dhaqaalaha ee Davos ayaa maanta si weyn uga hadlay xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Yurub waxaanay noqotay mid muran siyaasadeed iyo dood caalami ah dhalisay wararkaan idinka hayno Soomaaliya waxa ugu dooroon wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxay soo dhaweysay go'aanka maxkamadda racfaanka ee bariga Afrika taasoo xaqiijisay in xildhibaanada Soomaaliya loo doortay baarlamaanka bariga Afrika ay sii wadaan xilalkooda arrin kor u qaadaysa iskaashiga gobolka sidoo kale xafladii maanta uu kaga hadlayay arrimihiisa gaarka ah madaxweynaha Mareykanka ayuu ku soo qaaday Soomaaliya wuxuu ku sheegay Soomaaliya inaanay dal hayn dawladna aanay lahayn ciidanna aanay lahayn dhaqaalena aanay lahayn kuwa halka la joogaana ay u soo tuuga tageen iyagoo shaqaysanna ay doonayaan inay waxooda cunaan wuxuu sidoo kale soo qaatay Ilhaan Cumar oo uu sheegay inay haysato 30 milyan oo dollar oo aanay shaqaysan kuwa kalena ay u xidhan yihiin lacag ay xadeen sidoo kale wararka naga soo gaaraya bariga Sool maamulka ayaa maanta waxa dhacay waxa halkaas isku qabsaday madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisa oo ku kala kacay iyadoo xurgufurna ka dhaxaysay sida wararku nagu soo gaarayay hadda waxa la sheegayaa inuu halkaas kaga tagay madaxweyne ku-xigeenkii sidoo kale wararka ka imanaya Somaliland hadda waxay sheegayaan xogta safarka madaxweyne waxa weli jira xog laga helay warbaahinta gudaha oo sheegaysa in madaxweynaha Somaliland uu safar u baxay maanta balse ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada Somaliland oo xaqiijinaya halka uu u socdo ama uu u jeedo safarka madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo lagu wareeray sidoo kale weli waxaan ku gudujinaa arrimihiisa Somaliland Martin Sel oo ah madaxweynaha ururka Republikaanka oo ah urur taageera siyaasadda xisbiga Jamhuuriga ah Republikaanka Party ee Mareykanka ayaa sheegay in Jamhuuriyadda Soomaaliya ay tusaale cad u tahay dal diiday in lagu iibsado danihiisa qaranka dhaqaale shisheeye isagoo ka hadlaya arrimahaasi siyaasadeed iyo madaxbannaanida Marcel wuxuu xusay in Somaliland ay si cad u diiday laaluush lagu doonayo in lagu sameeyo go'aamadeeda taasoo uu ku tilmaamay tusaale mudan in ay ku daydaan dalal waaweyn hay'ado caalami ah iyo shakhsiyaad saameyn ku leh wuxuu carabka ku adkeeyay in mowqifka Somaliland uu muujinayo dal ku dhisan mabda' go'aan madax bannaan iyo mas'uuliyad siyaasadeed halkii uu noqon lahaa mid ku shaqeeya dano ku meel gaar ah oo dhaqaale Marcel ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in qaabka ay Somaliland u wajahday cadaadiska dhaqaale iyo siyaasadeed uu noqon karo cashar muhiim u ah ku wajahan nidaamka caalamka sidoo kale wararka Djibouti waxay maanta marti gelinaysaa International Forum on Adaptation to Climate Change ICAF 26 shir ay ka qayb qaadanayaan saynisyahano
madax siyaasadeed iyo khubro si loogu shaqeeyo la qaybsiga iyo ka hortagga saameynta isbeddelka cimilada ee bariga Afrika. Daawadayaal, war waxaanu caawa idinka haynay caalamka waa naga intaa. Tan iyo inta dib u kulmayno, habeen wanaagsan. Subscribe, like, share, please ku dhufta hoos buu dhacay daawashadii. Bye.